warar goordhow soo baxay ayaa waxa ay tilmaamayaan in wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu iscaasilay. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Abshir Cumar Jaamac Xuruuse ayaa goordhow waxa uu ku dhawaaqay inuu iscaasilay sabab la xiriirta musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Xuruuse ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku shaaciyay iscaasilaadiisa isaga oo u gudbiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre. wasiirka oo xilkan soo hayay muddo ku dhow sanad iyo bar ayaa sheegay in uu iskiisu go'aansaday inuu ka tago shaqada sida uu ku sheegay qoraal uu soo saaray. waxaana qoraalka uu soo saaray wasiirka oo ku qornaa sida tan: bismillaah, waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 18 Diseembar 2023 aan go'aansaday inaan iska casilo xilka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, anigoo aaminsan in aan si hufnaan iyo daacadnimo ku jirto ugu adeegay qaranka, ilaaliyana mas'uuliyaddii ballaarnayd ee madaxda qaranku ay i igmadeen, ayuu ku yiri iscaasilaadiisa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in hadda kadib uu diiradda saari doono ololihiisa doorashada Puntland si uu ugu helo waqti uuna u galo diyaargarow ku aadan doorashadiisa. waxaan halkan ugu tegay si ikhtiyaarkayaga iyo in aan ku biiro oo waqti iyo madax bannaani aan ugu helo ololaha doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, ayuu mar kale ku yiri war-saxaafadeedkan uu soo saaray wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Abshir Xuruuse waxa uu mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maadaama ay muddo soo wada shaqaynayeen, isaga oo xukuumaddiisa u rajeeyay guul iyo horumar kale. ugu dambeyntii waxa uu fariin u diray shacbiga Soomaaliyeed oo ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan dowladnimada si loo gaaro horumar iyo barwaaqo.